الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة شنالك يوتيوب كأسلحة بسافي وحن إذن سو قد بنايا قصص الأنبياء. فضلا سبسكرايب سار شنال كسي كوغوسو غاران مخالدة عن سو قلي كمبانير كتاوى سيد أدوغو نقطة قفكو وغو هريو أو دعوة شرد سيد أولو وذاكتو أصحاب تادا ولا لهيغا فيلم كان وحالة سيميي مركي سنة كاي إهد كن إسغال بقول تدواتن إيا لحدي هادنا وحان كجرنا لبادا كن إيا لباتن إلما فيلم كان وحالة جوغا أفرتن إيا لح سنة فيلم كان وحالة لها قصة الإسلام وخيبتي كوات أنا قاني وحان وبحثني قصة نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيلمك إنتانا بلاوانين هردعان فيرسو فيلمك أو كهد لايو نبي إن لا أركي كرين rasuulkii eebbihiisa u doortay inuu qaado waxay buuraha qaadi karin qadar alle mooye iyo meel aan la gaari karin ee uu ka ahayn inuu ka muuqdo masawirkiisa ama uu carabkiisa ku hadlo. haddaba nebigeena suuban kama soo bixi doono muuqaalkiisa cod iyo har inta dhacdooyinka filimka uu socdo. kacbada oo u dhisay nebi ibraahim oo ah goob ay ku cibaadaystaan xujayda aaminsan in allah keliya uu yahay. 360 gaalo ayaa hadda ku soo darsamay tirada qabiilooyinka carabta. waxay ahayd xukunkii quraysh ee Makka. dadkaas waxaa ka mid ah maalqabeenka reer banu cabdildaar iyo ganacsatada waaweyn ee kelitaliska u ah dadka sanamyada si ay u horumariyaan ciidaha. waxaana ka mid ah banu haashim oo Muxamed awowgiisa ahaa oo ka doorbida martikalinta xujayda inta ay degan yihiin Makka. qofkan waxaa imaaday suuqa wuxuu rabaa inuu wax gato. qofkan waxaa la yiraahdaa umayane waxaa adoonsadaa bilaal waa adoonkiisa. bilaalne waa mu'adinka nebi Muxamed sallallahu alayhi wasallam. weliba suuqi ayaa lagu jiraa. haweeneydan suuqa ayaa imaadeen. ninkan wuxuu dhahay kaali waxaan kaa gado. haweeneydani waxaa la dhahaa Hinda, Abu Sufyaan xaaskiisa waaye. marka haweeneydii way jeclaatay. wuxuu dhahay miraayada isku fiiri. haweeneyda ogay ayay dhahay waan ogolahay. wuxuu dhahay lacagta yaa dhiiba. waxay dhahday Abu Sufyaan ayaa lacagta ku siinaa. dadkan oo aad u jeedaan waxay u soo socdaan albaabka kacbada. albaabka kacbadani waxaa ka soo baxay labadan qof. midkan haddaan idin baro waxaa la yiraahdaa abaalahab. waa nebiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa oo dhibi jiray. waxaa loo keenay qalin iyo dahab. wuxuu dhahay qalinkan iyo dahab ilaahyadeena ayaa nasiib u yeeshteen. qofkan aad u jeedaan wuxuu soo sameeyey dooro oo gacmihiisa ku soo sameeyey. dooradan waxaa loo keenay abaalahab dooradii waa qaaday oo gacmaha lagu soo sameeyey. wuxuu soo geliyey kacbada gudihiisa. haweeneydan waxay weydiisay aawe ayay u dhahday Muxamed oo intuu jiraa halkan maba imaadee. mar walba jamalka le ku jiraa. muxuu ku sameeyaa jamalka dhexdiisa. kabacdi abulahab wuxuu dhahay kani waa ilaahaygeena Cuzza, kani waa ilaahaygeena Manaat, kani waa ilaahaygeena Laat, kani waa ilaahaygeena Hubal. abaalahab waxaa kala sheegay sanamada oo ku jiraan kacbada dhexdiisa. qofkan aad u jeedaan waa Abutaalib, nebiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa. Abutaalib waxaa la murugsan yahay nebiga sallallahu alayhi wasallam oo aan soo naqanin welito. wuxuu dhahay kacbada dadkii dhan way kala tageen ee Muxamedni weli ma soo naqanin. suuqyadii dhanni waa la xiray ilaa iyo hadda Muxamed weli ma soo naqanin. Abutaalib asagoo gurigiisa ku noqon rabo wiilkan ayaa soo orday. wuxuu dhahay Abutaalib Muxamed makuu imaaday. qofkan waxaa la yiraahdaa Zayd. Abutaalib wuxuu dhahay maya aniga ima imaanin ee nebiga. marka wuxuu dhahay aabi intuu jiraa.
wuxuu dhahay aniga inta waxaan u imaaday inaan ku weydiiyo meeshii oo ku sugan yahay kabacdi wuxuu dhahay guriga khadiija ka soo fiiri khadiija iyadaaba ii soo dirtay inta inaan imaado haddii inta joogo marka wuxuu dhahay abitaalib inta ma joogo ama guriga oo abubakar oo jooga kabacdi wuxuu dhahay maya guriga abubakar ma joogo kabacdi zayd wuxuu dhahay 3 beri buurka kama soo degin moxamed abitaalib qalbigiisa walwal ayaa galay oo 3 beri miyaanan ka soo degin buurta ayuu dhahay zayd gurigiisa ayuu aaday kabacdi habeenkii waa soo kacay albaabka ayaa soo furay waxa uu imaaday saaxiibadiisa guriga ayaaba ku sugaayeen saaxiibadiisa wuxuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa loo soo waxyooday nabiga markii loo soo waxyooday gacmihiisa kor uma qaadi karin gacmaha dhan ayaa ka cuslaaday garkiisa ilaa iyo korkiisa dhan dhidid aad iyo aad ayaa u dhididay nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo oo arintan oo isaga u sheegayo wuxuu maqlay nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa abitaalib wuxuu dhahay zayd wiilka oo walaalkayga dhalay maxaa ku dhacay zayd asagoo hadalkiisa sii wato wuxuu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo oo fadhiyo khaarka ama godka waxa uu imaaday malag wuxuu dhahay iqra nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ana ma biqari akhri ayaa loo dhahay nabigu wuxuu dhahay aniga wax ma akhriyi haddana waxaa loo dhahay akhri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay aniga wax ma akhriyi maxaan akhriyaa marka saddexaad ayaa loo dhahay اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كبعد محمد هو أخريي قرآنك مركي أخريي جبريل وكسيتكي وابحي abitaalib waa yaaway markii uu maqlay magaca jibriil wuxuu dhahay jibriil markii oo jibriil ka sii tagay nabiga sallallahu alayhi wasallam samada waxaa ku maqlay sood oo meel dheer oo loo dhahayo moxamed adiga waxaa tahay rasuulkii alle anigan waxaan ahay jibriil markii oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo degay buurta wuxuu u aaday khadiija arintii khadiija ayaa u sheegay khadiijana waxay dhahday ilaahay baan ku dhaartay aniga arintan waxaan u arkaa umudan inaa adiga aad u tahay nabi abitaalib kabacdi wuxuu dhahay zayd arintan yaa kula og zayd wuxuu dhahay arintan waxaa ila og khadiija abubakar iyo cali abitaalib kabacdi wuxuu dhahay zayd iska ilaali arintan inaad u sheegto reer makka ha u sheegin maxamedna u dheh adeerka abitaalib mar kasto garabkaaga ayaa jooga waanu ku caawinaa labadan qof banaanka ku sheekaysteen waxay dhaheen maxamed waxaa la imaaday bidco mid wuxuu dhahay abu sufyaan muxuu samayn doonaa abu sufyaan wuxuu dhahay middan wuxuu noqon doonaa fitnada oo bani haashim like share comment